Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta gudoomiyay shirka geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. Qorshaha deyn cafinta Soomaaliya ayaa waxa uu marayaa heer wanaagsan sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya iyadoona dowladda ay tabar badan ku bixinayso hirgelinta qorshahaasi. Waxa arintaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. shirkani wuxuu ahaa shirkii geedi socodka deyn cafista aan usbuuc walba mar qabsano halka wasaaradda ku qabsano shirkaas oo loogu diyaar garoobayo shirarka kale ee waaweyn ee soo socda waxa weeye shir aan ku lafagurno waxyaalihii la nooga baahnaa iyo qabashadooda IMF-ka iyo anagu waxaan kala seexanay agreement baan kala seexanay waxaa ku jira inaad qabataan intaasoo arrimood oo mid waliba meel ku eg yahay qaar baa June ku ekaa qaar baa September ku ekaa qaar baa December ku eg qaar baa March ku eg bisha saddexaad ee sano soo socda taasaan ku lafaguraa taas shirkaas oo toddobaadkiiba maalinta Isniinta 9 aan qabsano oo ciddii ku shaqalayba timaado halkan ayaa maanta aan ka dhignay sharci anagoo u joojinay baarlamaanka shirki uu lahaa goluhu taasaa ra'iisul wasaaruhu maanta nagu sharfay oo nagala soo qayb galay inta badanna uu nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaruhu marmarba isagu noo jeer gareeya maanta isaga noo gudoominayay waxaan isku taagnay markaa arrin walba looga baahan yahay halkaan marayno ayaan isku taagnay iyo wixii ra'iisul wasaaraha iyo dawladda aan uga baahanahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasaaradaha kale waxaan uga baahanahay ayaan farta u saaraa marka taasaan ka shaqaynaynay inta badan geedi socodkaas si fiican buu socdaa laakiin waxyaalo waxa jira weli inaan ka sii shaqayno loo baahan yahay waqtigeeduna waxa weeye December shir weyn baa la gelayaa oo lagu gelayaa Nairobi oo IMF ko aan halkan iman karaynin baa Nairobi imanaysa anaguna halkaas aan tagaynaa marka shirkani runtii wuxuu u diyaar garow shirka weyn December la gelayo iyo tubtii sidaan ugu socono deyn cafiska ayuu ahaa